kusoo dhawaada channelka Mulki Diamond iyo ma aragtay familkeeda waa walaashiina Mulki aad iyo aad baan u faraxsanahay runtii maanta ma aragtay inuu caafimaad qabno idinka iyo anigaba inaan is hor fadhino oo is dhageysanayno isna daawanayno taas waxa weeye wax aad iyo aad loogu farxo alxamdulillah ilaahay loogu shukriyo maanta mowduucan ka hadlayo asxaabay waa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah una xasaasi ah waxaana jeclahay runtii marka saas aan wax uga hadlo arin aan ma aragtay familka yani waxa ka wada asxaabtayda iyo mujtamacayga Soomaaliyeed aan la wadaago in idinkana ra'yigiina comment la igu reebo haduu alla yiraahdo way aniga ii tahay faa'iido waxaana jeclahay dadkayga inaan ma aragtay aan fikradahooga aan aad iyo aad aan uga faa'iideysto arrinka ugu horeeya maanta aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye waa society-ga Soomaaliyeed mise saa u naqaanaba bulshada Soomaaliyeed maxaa mise sababta keenayso in dumarka loo xaqiro mise dumarka aad iyo aad ay ugu liidan yihiin maxaa u sabab ah taas weey horta marka ugu horeysa in aan isweydiino laga bilaabo baadiyo ilaa magaalo maxaa keenay in ay dumarka ku dhibaataysan yihiin mise naagaha sidaba u taqaaninba sababtoo ah gabdhaha waxa weeye xaqooga lama siiyo ma aragtay talabaadna taasoo u sabab ah dhaqankii soo jireenka ahaa ma aragtay Soomaaliyeed baadiyaha haddaan ka hadalno for example aan ka dhiibto baadiyaha dumarka waxa weeye markay yaryar yihiin ilaa intay kasoo qaangaarayaan waxa weeye aad baa loogu shaqaystaa shaqo culus bay qabtaan banaanka kasoo adeegaan banaankay hawl kasoo qabtaan gudaha oo raacaysa ariga waa iyada ma aragta xoolaha iyo geelka iyo waxa banaanka geenayso waa iyada saa u dheertahay beerta falayso waa iyada markay guriga timaadana haddana ma aragta iyadoo xaamilo ah iyadoo ma aragtay uur leh iyadoo ilmaha dhabar ka saaran yahay haddana gurigii hawsheedii wada waa waxa weeye waa dumar saa ay tahayna nin taajir haduu oo aroosa xataa oo waxa ka wada taajir baadiyaha xoolo dhaqat oo nin xoolo badan iska leh haduu aroosa xataa gabadha in ma aragtay banaanka ay la tagayso xoolihii ma aragtay iyadii dhibku ku dhacayo oo ma aragtay banaanka la raacayso beertii haduu beero leeyahay beertii la soo jafayso la soo ma aragtay gurayso gurigiinana waxa weeye iyadii uu sugayo cuntadii ilmihii wixii oo dhan laakiin saa ay tahayna xaqii laga rabay dumarka lama siiyo Soomaaliya oo lama karaameeyo runtii nabiga kaleey salaatu salaam boqor jeer ayuu ka hadlay wuxuu yiri dumarka hala karaameeyo dumarka ma aragtay xaqooga hala siiyo laakiin Soomaali waxa weeye dumarka xaqooga ma siiyaan runtii ninka xaqiisa siiyana naagtiisa way ka qurux badan tahay naagaha kale runtii naagtiisa way ka aqal badan tahay naagaha kale naagtiisa way ka caafimaad badan tahay naagaha kale naagtiisa way ka horumarsan tahay naagaha kale marka waxa weeye way ka muuqata jirkeedii ayaa ma aragta ka dareemaysaa waxaad ka dareemaysaa labiskeedaad ka dareemaysaa marka waxa weeye dhibaatada ugu weyn ma aragtay talada ninka saarta naagtiisa saas la eg uu ka hormaraa ragga ficiisa waxa weeye uu ka labis qurxoon yahay uu ka aragti qurxoon yahay marka waxa weeye waxaan ka wadaa dumarka xaqiraada lagu hayo mise society-ga Soomaaliyeed mujtamaca Soomaaliyeed aad bay ugu baaba'san yihiin runtii wiilasha aad baa ma aragtay wiilasha aad loo hormariyaa gabdhaha waxa weeye aad baa loo liidaa runtii wiilasha waxa weeye gabdhaha waxbarasho lama geeyo wiilasha lagu dadaalaa inta badan gabadha markay soo korto ay soo yara qaangaartaba waxay maamaha jirto Soomaalida la yiraahdo gabar guri ha kaaga jirto mise god ha kaaga jirto xaqeena lama siiyo ma aragtay maxaa la yiraahdaa waxbarasho lama geeyo isla markiina markay soo qaangaarto nin baa lagu daraa taasna aan kulay aragtay ahaan ma wanaagsano waayo waxa weeye waa waxa qayb libaax ka qaadanayo mise ka qaatay burburka qoysaska burburka mujtamaca Soomaaliyeed burburka
ma aragtay waalidka iyo ilmaha hadda ka dhacayo zamankan aan u jeedno oo waalidkii iyo ilmihii ay isfahmeen taas oo dhan waxa keenayso waxa weeye waa xaqiraada oo dumarka lagu hayo runtii xaqiraada mise liiditaanka oo dumarka la liidayo waxa fani ah aan raba ma aragtay inaan aan u fiirsaday runtii oo ma aragtay oo iga yaabiyo waxa weeye ninka Soomaaliya marka la joogay wiilka mise ninkaba markuu jikada soo galo waa lagu qaylinaya waxa la leeyahay war maxaa ku dhigay dumarka dhexdooda maxaa jikada ku dhex dhigay waxa tahay nin naagoosh wixii la oran jiray marka taas ayaa keenayso ma aragtay ninkii in ma aragtay uu markuu xataa yimaado Yurub mise waxaan ka wadaa qurbaha in jikadii dib ay ku noqonayso inuu naagtiisa caawiyo dib ay ku noqonayso waayo waa wax automatic uu ku soo koray hadduu galo jikada uu u dareemayo inuu yahay nin naagoosh marka taasna waxa weeye waa ta qayb libaax ka qaadato ninka in ma aragta uu naagtiisa caawin oo naagta mar walba dhibka uu ku dhaco oo waayo waxa weeye waa ognahay san oo la soconaba aan u ognahayba waxa weeye ninka iyo naagta ilaahay ma simin ninka waxa weeye boqolow naagta waxa weeye kontonley isla saa ay tahayna naagta lama oran xaqeeda ha lagu tunto ma aragtay lama oran meeshuu ninka ka boodayo kama boodi karto marka taas ayaa keenayso xaqiraada ma aragtay haddii la karaameen lahaa gabadha mise gabadha dumarkan ka wadaa mise naagta waxaan ogahay 100% dhibaatadana haysato mise mujtamaca dhibaatada haysata mujtamaca Soomaaliyeed in haba yaraatee ma aragtay aysan jiri lahayn waxa kaloo yaab leh oo jira oo iga yaabiya runtii hadda for example niman ayaa meel fadhiya naag baa iska soo ag fadhiisanayso oo Soomaaliya ha noqoto xataa qurbahan marka naagta ra'yigeeda rabtaa inay dhiibato waxay ka hadlayaan fikradeeda ayay rabtaa ma aragtay inay ka hadasho waxa weeye waxa la leeyahay waa naag waxa laga yaabaa fikradda iyaga ay hayaan mise meeshaas ay ka hadlayaan inay iyada ka fikrad wanaagsan tahay ay ka aqli badan tahay laakiin waa maxay waa xaqiraad marka ay leeyihiin naa waxa weeye nimanka lama dhiil gareyn kartid nimanka waxa weeye ma soo ag fadhiisan kartid waaba ceebba naag ma aragtay inay nin soo ag fadhiisato la dhiil garayso waxaan ka wadaa la dhiil garayso fikrad dhiibato waayo laguma soo abaabin gabadha markay familka xataa ay aabaha iyo hooyada iyo abtiyaalada iyo mise ragga meeshay ay garta ku gooynayaan ay soo ag fadhiisto waxaa leeyahay gabadh baa tahay xisho orog gurigaaga qolkaaga gal mise ragga ah soo ag fadhiisan marka taas ayaa keenayso in gabadhii ayba ra'yi lahayn ayba ma aragtay gabadha iyada xataa kalsoonidiya ka dhumayso waayo gabadhaada markaad tiraahdo hooyo hadal mise aaba hadal fikradaada dhiibo oo aad la sheekeysatid aad tiraahdo ani waxaan u arkaa arin baa igu soo kordhay saas baan u arkaaye adigana say kula tahay bal ra'yigeeda aad eegtid oo kuu furfurmaysaa ilmihii wuxuu bilaabayaa gabadha waxay bilaabaysaa inay isku aragto qof bini aadana inay isku aragto inay hadli karto inay isku aragto inay ra'yigeedii maskaxdeeda ilaahay u siiyey ay yuusgaraysan karto laakiin waxaa dhan waxaa ka hor istaagan mujtamaca Soomaaliyeed dhaqankii hore u jiri jiray marka taa haddii Soomaali ay meesha ka saaraan runtii oo u yimaado wax la yiraahdo isbedel sida aan u niraahno isbedel doon baan nahay haddaan nahay siyaasiyiin haddaan nahay Soomaali ayaan u rabi lahayn runtii in ma aragtay mujtamaca Soomaaliyeedna ay ma aragtay dhinaca xaqiraada dumarka ay ma aragtay wax weyn isbedel weyn u ka yimaado ani inima oranayo runtii maxaa la yiraahdaa wadamadan aan ku noolnahay oo hormaray oo aad u jeedid cirka ku dhagay inagoo iska Afrikaan ah warkeenaba iska dhaaf inima oranaya xaqiraad ma jirto of course way jirtaa waayo waxa weeye waxaan ka wadaa mushaarka ragga iyo mushaarka dumarka isku mid ma ahan
maxaa la yiraahdaa ra'yiga laakiin way ka wada siman yihiin shaqooyinka way ka wada siman yihiin wuxuu ninka qaban karo ayay gabadha qabanaysaa hadduu wasiir yahay wasiir way noqon kartaa hadduu agaasimo yahay agaasimo way noqon kartaa hadduu dhakhtar yahay dhakhtar way noqon kartaa hadduu ma aragtay madaxweyne isku soo sharxo xaq bay u leedahay iyadana inay isku soo sharaxdo wayna noqon kartaa waana aragnay wadankan aan joogno oo aan ku noolahay oo Finland la yiraahdo dumar ayaa qabsaday oo madaxweyne ka ahaa hadda naagta haysato waa prime minister waa madaxweyne waxa weeye waa maxaa wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha may waa prime minister aan jeclahay waa naag marka waxa weeye heer sare ayay gaareen oo rag u gaari karo laakiin saa ay tahay waxa weeye mushaarkooga isku mid ma ahan heerkaasna iyaga isgaarsiiyey way dagaalameen way halgameen waxa weeye waxbay barteen wax walba ka hor yimaadana ma aragtay dhagaxa waa la jabiyaa wax walba ka hor yimaado waxa weeye wala dagaalameen heerkaasna hadda ay taagan yihiin ay xafiis kasta ay fadhiyaan meel walba ma aragtay iyaga kaaga hor imaanayaan iyaga isgaarsiiyey gacmahay isqabsadeen marka taas waxaan ka wadaa dumarka meel walba waxa weeye dhib waa lagu hayaa hindidaas wadamada Asianka hindida carabta waxa weeye waa la xaqiraa dumarka wadamada islaamka aad baa loo xaqiraa wadamadan gaalada iyaga way jirtaa dumar badan oo la dhibaateeyo la abuso laakiin waxaasoo dhan waxa weeye waxa ka xoog badiya gabdhahooga waxbay baraan dumarkooga waxbay baraan dumarkooga waxa weeye tii soconayso way socodsiiyaan waxa weeye sida Soomaalida aad dhulka loogu ma aragtay jiidayo dumarkooga looguma jiido maxaa la yiraahdaa dadweynahaas kale iyo wadamada kale oo ma aragtay nala midka haddaan ka hadlo dhinaca diinteena suuban runtii dumarka aad baa loo karaameeyey aad baa ma aragtay xaqooga looga hadlay aad baa ma aragtay loo sharfay laakiin waxaan ka hadlayaa waa mujtamaca Soomaaliyeed iyo dhaqankii soo jireenka ahaa markaasaa awgeeda inta oo lagu dhaqmayo dhaqankii hore iyo inta ma aragtay dumar sas loo xaqirayaba waxaad ogaataan mujtamac hagaagayo mise ma aragtay hooyo faraxsan mise dumar ma aragtay ilmo wanaagsan korinayo inaysan jireen wadamadan aan joogno waxa weeye sharciyaa ka jiro sharciyay samaysteen ma aragtay oo dumarka loogu xaqooga ma aragtay oo aad iyo aad loo karaameeyay oo loo sareysiiyay sharciyadaas kala caliyo inaka diintana kala calinaysay hadda samankan aan ku jirno waxaad u malaysaa diinta mujtamaca Soomaaliyeed kuma dhaqanto wali wax weyn ayaa naga qaldan runtii waxa wanaagsan in ma aragtay diinta loo soo noqdo waxa wanaagsan ma aragtay ilaahay wuxuu na faray maanta hadii lagu wada dhaqmo qoys walba mujtamac kasta reer kasta hooyo iyo aaba kasta waxa weeye waxa meesha ka soo bixi lahaa mujtamac aad iyo aad u wanaagsan marka qoys aad iyo aad u fiican oo respect is siinayo laakiin meesha waxa ka baxay waa diintii marka ani kolley ra'yi ahaan saasay ila muuqataa idinkana ra'yigiina waa soo dhiiban kartiin ra'yigiina meesha waa kasoo sheegi kartiin oo waxa way commenkaad igu dhaafi kartiin laakiin wallahi dhibaato weyn ayaa jirto waxba ma aragtay dadkii dhan confuse ay ku wada yihiin waxba ma aragtay iskaga wada qasan ma aragtay mujtamaca Soomaaliyeed iyo ummadeenaba iyo society-giiba ani runtii waxaan jeclaa wadamada marka loo soo baxo oo qurbo la yimid in ma aragtay isbedel weyn uu yimaado laakiin waxaad u malaysaa from beginning in ma aragtay hadda gadaal loo wada noqday oo in ma aragtay xaqii dumarka xuquuqdii dumarka ay lahaayeen hadda ay ka sii xun tahay hadda ma aragtay aad waxa keenayo oo ma aragtay kaleerka loo wada arkayo waa social mediaha waxaan ma jiri jirin ma aragtay lama arki jirin laakiin hadda wax walba waxa fududeynayo waxa weeye waa social mediaha waxaad arkaysaa gabdhihii
oo la wada kufsanayo waxaad arkaysaa gabdho yaryaroo ma aragtay la leeyahay aabbihiya xoogay waxaan way jiri jireen gabar waxaad arkaysaa 10 nina ma aragtay kufsaday lagu leeyahay gabar waxaad arkaysaa lagu leeyahay inta la kufsaday mise la xoogay ayaa la dilay subxaan allah waxaan ma jiri jirin runtii haddana mujtamac islaana sheeganaynaa aaway diintii aaway maxaa la yiraahdaa ilaahay wuxuuna faray oo uu yiri ku dhaqma haddaad rabtiin mujtamac wanaagsan iyo nabadgelyo iyo naxariis in dhinacayga aad ka aragtiin wixii haddiiba lagu dhaqmeen oo diintii ma aragtay sidii ilaahay noo faray la sameyneen dee inankana ma raaxaysanana adduunna laguma raaxaysanayana aaqarana tuka daran ayaa nagu sugayso marka ani kolley xalka waxaan u arkaa in nin walba naagtiisa uu karaameeyo nin walba naagtiisa xaqeeda uu siiyo nin walba naagtiisa uu caawiyo nin walba ma aragtay naagtiisa uu ma aragtay ka dambeeyo iyada ilaahay suu ugu faray inay ku caabudo ma aragtay ay kaa dambeyso ay ku xaq dhowrto adigana waa in ma aragtay naagtaada xaqeeda aad siisid oo aad xaq dhowrtid oo aadan u arkin qadaamo keliya oo ma aragtay cunto kuu karinayso maxaa la yiraahdaa warshad oo ilmo kuu dhalayso iyada ra'yi leedahay ra'yigeeda ku respect garaysid aragtideeda ku respect garaysid kalsooni dhexdiina ay timaado maxaa la yiraahdaa nolosha saas ay ku macaan tahay kulley aniga conclusionkayga iyo xalkayga waa saa idinkana ra'yi baad leedihiin kule waa ila wadaagi doontiin haddana waxa weeye kuma sii dheeraanayo insha allah mawduucyadan waa soo badin doonaa hadduu alla yiraahdo marka sidaa iyo la socod wacan iyo la socod dambe insha allah idinkana waxaan igaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu